روحاني وحاترا ديف كلا وداغو دالانتيت رنمودو دقاليو وانا قبا لقدبا بيباتيا روحاني وحاترا ديف كلا وداغو دالانتيت رنمودو دقاليو وانا قبا لقدبا بيباتيا inkastoo xukuumadda Soomaaliland ay tacab badan gelisay samaynta iyo bixinta kaarka aqoonsiga Soomaaliland shacabka reer Soomaaliland oo waqti badan kaga lumay isla markaana ay ugu jireen qaadashada kaararka jinsiyadda oo ay muddo badan ay sugayeen sidii ay u qaadan lahaayeen kaararkaasi ayaa waxa ama kaag noqotay in dad badan oo sugayay qaadashada kaararku ay kaararkoodii ugu tageen meel 15 kiiloomitir u jirta magaalada Hargeysa dhinaca waqooyi kuwaas oo la kulmay kaararkoodii oo halkaasi dab lagu qabadsiiyay arrintan mucjisada noqotay oo uu ku wargalay telefishinka Somaliland Space Channel ayaa waxaanu ugu horreey wax ka weydiinay dadkii deegaankaasi deganaa ee goobta ku sugnaa ayaan u aragnaa waxana weeye kaarkii muwaadinka waa kaarkii aan ku helay dad badan aan ku helan weyne markii hore imikana waxa loo gubaano garan mayno dabkaas aan ku aragnay carruurtaan loo keentay xoolaha la jooga markii hore warmaanaan hay jirda dadka halkan kaarkooda lagu gubay adigu wax ma ka garanaysaa hadda qaar badan oo ka helay baa jira kuwa kalena waan ku rajaynaa hadaan sheegno way sadhinteena way gubteen wax loo gubana lama sheegin dawladdu sidan ay tahay ma oran wax kama jawaabin kaarkan u joognay intaasoo ku loo galay baa saadan loo gubay hadii leeyahay maana galay ba ku yuga marka waxa aan la qaadan karin ha ka jawaabto dawladdu bal waxaan u gubtaysay ama ay muwaadinimadan san ugu gashay iyada warkeegan ku sugayna arrintaasi markii ay ku soo gaadhay aad u dareen ahaan oday ahaan cuqaal ahaan sideed u aragtay aad iyo aad baan uga xumaaday sababtoo dhaqaalaha galay dad ba ku taagnaa intaasoo muddo loo taagnaa ku yugan 10 maalmood galay ba haddana wuxuu istaalanay hadii leeyahay maana galay balama galay marka dawladana qarash baa kaga baxay dadka dhibaato kaga baxday hawl baa ku baxday adduun baa ku baxay marka in adduunka saaloo siciya hadana ma yahay kaarbaan Soomaaliland kaarkaasi cid kale ma gali karto ayay dawladdu loo sheegtay haddana halkaas ku soo qabtay wasiirka arrimaha gudaha wuxuu sheegay wada kaararka magaalada waxaan Soomaaliland in loo dhiibo kantaroolada oo ninkaas sida laga qabto wixina sana laga dhigay goor la keenay iyo goor la gubay kama warhayna anagu saas uma dhigoogan ciyaalada meelaha sita wax loo goyna kama warhayno dawladuna waa tina diro kaarkii muwaadinka ninkaas sideen ma shaqeyn karayo ma socon karayo dawladdu hawl badan baa laga gasho aanu galay dad badanna way qaateen dad badanna way sugayeen kii sugayna sidii buu taagna u sugay dad badan baa ku sugay halkan lagu gubay ka helay kaarkoodii halka lagu gubay marka dawladdu war ma hayna wax arrimaha sidan u sameeyay ay uga jeedo laakiin dareen ahaan waxaan u arkaa arrin qalad ah sababtoo ah dawladdu waxaan siyaasad bay ka wadaban malinaya si ay doorasho dib ugu dhacdo ay kaarkii muwaadinimada saa loogu gubay marka waa qalad waxaan oo kale waxyaalo dad baa ku taagnaa intaasoo maalmood baa la sugayo la soo celinayay dadka imika guriga shaqaalaha maalin walba dadkii waxaan kaarkan lahaa ay tagayaan marka arrin qaladan warkaan arrin qaladan waxaan warkaa kaarka muwaadinimada hawl loo galay ee dib loo yahay naga soo mareen ku yiga maalmo dhan loogu jiray in halka lagu gubaano qalad baan warkaa arrinka maxaadi mana dhalishay wala ma dhawre dhalishay maxaadi mana dhalishay wala ma dhawre dhalishay waan dhaliilay xafiisyada waan dhaliilay ma wada dhami qarbaan dhaliilay waan dhaliilay xafiisyada waan dhaliilay ma wada dhami qarbaan dhaliilay maxaad u dhalishay dhalishay nimeeno aad u dhalishay maxaad u dhalishay dhalishay nimeeno aad u dhalishay روحاني وحاترا ديف كلا وداغو دالانتيت رنمودو دقاليو وانا قبا لقدبا بيباتيا روحاني وحاترا ديف كلا وداغو دالانتيت رنمودو دقاليو وانا قبا لقدبا بيباتيا dhinaca kale waxaanu arrintani wax ka weydiinay wasaaradda arrimaha gudaha waxaanay noo sheegtay inaanay guud ahaanba arrintan waxba ka ogeyn balse ay berrito soo hubsan doonaan sida ay wax uga jiraan
dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya ayaa waxay arrintani ku tilmaameen kuna macneeyeen inay tahay mid carqalad lagu gelinayo habsami u socodka doorashooyinka Somaliland si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa ah mid cawaaqib xumo iyo fool xumo ku ah xukuumadda Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo isagoo hore ugu dhaliili jiray xukuumaddii Daahir Riyaale inay in badan carqalad gelinayaan habsami u socodka doorashooyinka maanta ku kalsoonaaday ogahay oo imikaba aan leeyahay waa si buuxa u leeyahay haddadan ayaa dowladdu carqalaad ku wataa inay doorashadu waqtigii dowladda bal isla qaatay inay dhacdo oo ay doonaysaa inay diiwaangelintii carqalayso qaabkii ay isla qaateen dowladaha wax naga caawinaya iyo commissionka iyo axsaabtu waqtigan carqaladaya wiigan ayaa loo tegay Riyaale oo war wixii aad nala qaadatay ee isla qaateen saan doorashadu u dhicin ogolow qaabka ay u soo jeedisay qoladii siini walaha dhexe doohane waxaa jira dheef kula wadaago dhalanteed runmoodo dhaqaaliyo wanaagaba laga dhabaabay baa jira doohane waxaa jira dheef kula wadaago dhalanteed runmoodo dhaqaaliyo wanaagaba laga dhabaabay baa jira